بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إذا أنتم من الوضع الذي جبتم haddii ay tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe sar channelka gmailka furo si aad ula socotaa casharada aan soo gudbino dhammaantood. haddii aad nala joogtayna waxaan ku leenahay hore u sii wado, ha ka caajizin inaad nala barato luqadda. maanta waxaan rabaa codsi iga yimaaday asxaabta qaarkood inaan fuliyo, halkaan ka fuliyo ama ka tixgeliyo. marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo cashirka aan kusoo daro marmar ama qaybo ka mid ah ama maalin aan soo jeediyo vocabulary day to day vocabulary ama everyday activities waxyaaba maalinka markaas aan sameyno oo latter day ama qof bini'aadanka nafsadiisa ku horo. So everyday activities including here I say in the morning when somebody wakes up, waagu waa bari, you wake up, you wake up. So wake up in the morning. After you wake up, you get up. So here we have two vocabularies which we use ama maalin walba aan adeegsano. Wake up. So you can say jumlad ahaan markaad ku samaynayso waxaad leedahay I wake up at 6 o'clock. Then you get up. Get up or get up the way you pronounce, no problem. You get up from the bed, okay? Then second, you brush your teeth. Brush teeth. Brush teeth. ilkaha ood cadaysanaysa. Then comb hair. Not necessarily inay isku xigaan ma ahan, yani ficilada aan sameyno ama qof markuu soo kacay ilaa maalinku shaqada kaada ama waxbarashadiisa kaada inay isku xigaan qasab ma ahan, yani qaabka usoo jeedinaya markaad ala fiiriso. laakiin day to day activity wixii maalmaha qofku ku sameynaya raba inaan ogaaan meesha halkan ka sheego. Then brush teeth, comb hair, comb hair. Do homework, do homework. do homework mostly waxaa sameeyaa qofka ardayga ama jaamacadaha ku jiro ama dugsiga sare dhigta ama primary ku jiro. That person after a tiresome day or after the classes end, the teachers the lecture always gives homework which that person is supposed to do when he or she reach at home. Then have breakfast. Have breakfast. I have breakfast at 6. So have breakfast waa quraanaya. Have lunch waa xilliga qadada. Have lunch. So haddii tusaale saaxiibka oo kula socdo you say let's have lunch. Have dinner. Have dinner. Let's have dinner. aan wada casheyno ama aan casheyno. dinner waa casho. Do exercise. Do exercise waa qofka inuu alinteeyo. It is part of the health. A healthy person should always exercise. So exercising should be part of your daily routine. Have exercise. Do exercise. Take the bus. Take the bus. Whether you are going to school, whether you are going to job, whether you are going to the hospital, take the bus. bus kada qabsanayna. Walk to school. Walk to school. Mostly markaan iskoolka aadayno waxaan sameyn jirnay we used to walk from home to school. waan lugeynayna iskoolka aan lugeynayna. We walk to school. Drive to school or walk. If you have a car and you go to school, you can drive to school. If you have a car and you go to work, you can drive to work. So drive to school or drive to work. So inaad shaqada gaari u qaadato ama iskoolka u qaadato. haddaad xoogaa jeebka ku yara buuran yahay iskool aan dhigato, you say I drive to work. haddaad shaqada u socotan you say drive to work. haddaad iskoolka u socotan ama jaamacaddan you say drive to school or drive to university. Take a shower. Take a shower. يعني qofku waa inuu shower qaata ama qubays sababta.
You can sometimes say take a bed. Take a bed. Talk to friends. Talk to friends. وإن صاحبك أو صاحبتك la sheekaysato ama waqti la qaadato. You talk to friends. Talk to friends. Surf on the internet. Surf on the internet. Nowadays, internet is part and parcel of the community. So internet الآن inta badan waxa waaye mugdi. So you surf the internet. Internet kan ku jira ama wax baan internet kan ku jira qofka ku leeyahay that person is surfing the internet. You surf the internet. Play video game. Play video game. Play video game. يعني qofka inuu video game ciyaaro ama gameka muuqaalka maqalka iyo muuqaalka ay dhalada lagu ciyaaro so like video game. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. يعني qofka inuu gitaarka garaaco. Play the guitar. Wash the dishes. Wash the dishes. So ujeeda wiilka yarka ah inuu weelasha guriga mayrayo. So you wash the dishes. Wash the dishes. Dishes waxaa la yidhaahdaa utensilska ama maacuunta guriga wax lagu cunaa called dishes. Study. Study is part of the vocabulary today. Study waa qofka inuu wax akhrisanayo or concentrating. That person in studying. Study. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Qofka dhala inuu daawanayo. He is watching TV. Ni hal markaan sheegayo. Markay badan yihiin waxaan dhahayaa they are watching TV. Watching TV waa progressive. Weli cashiradeena maana gaarin present continuous ama continuous tense laakiin waan gaari doonaa. So hadda waxaan maraynaa cashirkeena inaan joogno simple present iyo past. So haddii hadda TV-gan dadkan ay daawanayeen shalay ama xalay waxaan leeyahay they have watched TV last night. Make the bed. Make the bed. You had a long day and you came back from work or from school. Before you go to bed, you need to make the bed. You make the bed. Sariirta waa in la taagto. You make the bed so that you get a very peaceful and comfortable sleep. Set an alarm or set alarm clock. Set alarm clock. waa inaad alarm ku xirato si xilligaad rabtay aad kusoo kacdo ama hurdo aysan kula tegin. Set alarm clock. Then go to bed. Go to bed. Inta waxaa iga eeg vocabulary-ga maanta aan soo diyaariyay. Tani kulanta dambe waxay sale waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.